xildhibaan Axmed Maxamed Cali Sangub oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa kormeer wacyigelin ku soo maray deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley isagoo oo bulshada deegaanadaasi ku abaabulayay isla markaasina ku wacyigelinayay inay qaataan kaadhka codbixinta oo ay isduwaan galiyaan si ay ugu doortaan qofka ay doonayaan. goobaha ay duwaangelintu ka socoto ee deegaanada godka carrada Gogeysa Lookaroor Galoole iyo magaalada Gabiley ayaa uu xildhibaan Axmed Maxamed Cali Sangub soo kormeeray oo mid u soo dul istaagay isagoo oo kormeeraya qaabka ay shaqadu uga socoto deegaanadaasi iyo sida ay bulshadu isku duwaan gelinayaan. waxaana uu bulshada gobolka Gabiley ku booriyay inay qaataan kaadhka codbixinta isla markaasina ay isduwaan geliyaan. waxaana uu yiri maanta oo ay bishu tahay 2 December waxaa halkan gobolka Gabiley ka socday diiwaangelintii codbixiyayaasha oo runtii si habsami u socota. 4 cishe maanta u dambaysa dadkuna wali hadda kuyuga aad buu dheer yahay sidaan arkayno. 4 cisho kuma filla bal kulli commissionka insha Allah taala waxaan ka codsanaynaa in goobaha hore lagu bilaabay dib loo eego waayo kuyuga halkaas socda ilaa gelinka dambe uu soconayaa dadka in aanay u dhammaanin oo laga bartagaa dhici karta dee waqtiga ay commissionku asteeyeen. marka commissionka waxaan ku codsan lahayn kulli ay dib u eegaan taas oo codsi ta kale ilaa maalintii 29kii ilaa maanta goobo badan baan wacyigelinta ka wadnay oo waqooyi iyo ogo intaba ah. maantana waxaan ku soo gabagabay magaalada gudaheedii alxamdulillah. kulli codka gobolku marka horeba waa badnaa imikana waxaan rajaynaynaa in tiro badan ay soo baxdo. dadkuna aad iyo aad buu mahadsan yihiin way u adkaysteen waxa weeye milicda cadeeda iyo ma garanaysaa tiyo ay iska jirto farsamo ahaan xagga kombiyuutarada oo maalintii u horeysay waqtiga maalinta u badan ay sidii wax loo hagaajinayay oo waqtigu qaatay. marka alxamdulillah weeye maanta goobtaasaan ku soo xidhaynaa. dadkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay muujiyeen iyo doonista xooggan waxa weeye xaqa dastuuriga ee ay hadhow toole ay ugu helinayaan qofka iyo qarankaba. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin gobolka Gabiley.